السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين قود جرنا برنامج كين ليا كادوك waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa sharabaado nusqaan ku noqday ra'iisul wasaaraha dalka Canada. Haddii aad ku cusub tahay channelka, ha ilaawin inaad taabato buttonka casriga oo subscribe. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa dareen adag kala kulmay sharabaado uu ku soo labistay kuwaasi oo si gaar ah warbaahintu buunbuunisay kadib markii ay la yaab ku noqotay muuqaalka sharabaadka ra'iisul wasaaruhu xidhan yahay oo aad uga duwan caadiga kuwa madaxda looga bartay. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo kamid ah madaxda sida weyn warbaahinta ugu xidhan xiriir fiican la leh ayaa dhawaan mar uu shir saxaafadda uu kula hadlay kusugna warfidiyanadu isha la haleeleen sharabaadada uu xidhan yahay oo muuqaalkooda iyo qaabka loo talay labaduba aad uga duwan yihiin kuwa caadiyan madaxdu xidhato. Sharabaadka ra'iisul wasaaraha Canada nusqaanta ku noqday ee sida la sheegay hadiyad loogu keenay waxaana ku sawiran shabeelka nooca Siberianka loo yaqaan ee Ruushka iyo qaybo kamid ah qaaradda Aasiya ku nool kaasi oo laga dayrino inuu dhawaan dunida ka tabarko oo si weyn loo ilaaliyo. Muuqaalka sharabaadada ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa markuu qofku ka fog yahay loo malayn karaa inuu aadimada xinna loogu soo xardhay ama sawir ku soo tuntay hase yeeshee marka loo dhawaado si fiican loo arki kara shabeelka ku samaysan iyo muuqaalkooda oo dhameystiran. warfidiyanadii kamaradaha la haleelay sharabaadada ra'iisul wasaaraha ay siyaabo kala duwan uga hadlay waxa ay si dhamaantood ka sinaayeen dareenkooda ku aadan ee sababta u noqday in isha kamaradaha la boobaan. caadiyan madaxda iyo dadka mas'uuliyiinta ay ma xidhaan dharka midabkoodu la yaabka leeyahay ee faalooyinka badan laga bixin karo waayo uma baahna sabab ay dhar midab yeelay sida dhalinyarada oo kale ugu soo labistaan. sidaa waxaa yidhi mid ka mid ah sawir qaadayaasha sharabaadada ra'iisul wasaaraha Canada soo tabiyay.